رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaantiin waa idin salaamaya xildhibaanada sharafta leh shirgudoonka waa idin salaamay waxaan rabaa intaanan qodobada u guda gelin inaan in yaroo gogol dhig ah ama hordhac ah ka sameeyo cutubkan labaad oo muhiim ah xuquuqul insaanka ama xuquuqda aadamaha wuxuu ka hadlayaa cutubku had iyo jeerna isberberyaal xuquuq iyo waajibaadka muwaadinka Soomaaliyeed saaran iyo xaq uu leeyahay sidoo kale xorriyadaha iyo xuduudaha qofku waxa uu xor u yahay iyo in xuduud loo sameeyo oo aanu qofku ku xadgudbin xorriyadda uu leeyahay saddex shay baan cutubkan oo aad u ballaaran aan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ku baraarujiyo waa marka koobaad shayga la yiraahdo dimuqraadiyadda ama democracy ama democratic rights ay reer galbeedku aad u riixaan iyo inaga halka uu inaga joogo ama ay tahay sida aynu ugu dhaqmayno oo iyaga qudhoodu markay ka sheekeeyeen waxay yiraahdeen too much democracy is anarchy dimuqraadiyadda la sheego oo xariga loo sii daaya ama heega loo sii daaya waxa weeye nidaam darro iyo waxay keentaa qas qodobka labaad waxa weeye xorriyatul qowlka ama xorriyadda saxaafadda ama xorriyadda hadalka oo iyaduna ah shay labaad oo ka labaad ee laga soo qaatay xuquuqul insaanka ee aadka loo weynayo ama loo buunbuuniyo oo waayo afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda ka jara markaas sidee baynu iyadana u jehaynaa xorriyadda saxaafadda xorriyatul qowlka loona ilaaliyaa curfiga akhlaaqda suuban iyo amniga qaranka taasina waa mid labaad oo cutubkani sidee buu u jehaynayaa ay tahay inaynu isweydiino ta saddexaad waxa weeye iyadoo gabdhaha Soomaaliyeed raalli iga yihiin xuquuqda haweenka iyo sida loo riixo ama loo dhigo inta marka la isku daro oo xuquuq kale oo aasaasi oo waaweyn oo barbar taala aan bal eegin ama laga hadal saddexda marka la isku daro waxa inoo taala su'aal ah sidee baynu u jehaynaa maxay tahay doorka aynu ka leenahay cutubkan xuquuqul insaanku inaanu noqonin copy and paste halka ka soo jar dastuurka ka qaad halkan geli waxaan anigu aaminsanahay inay aasaas u noqoto koow shariicada islaamka oo maqaasideedana uu maka burhaan inoo sharxayay culimada diinka Soomaaliyeedna wax badan ka hadlaan laba dhaqanka Soomaaliyeed oo suuban marka laga yimaado caadooyinka hadaadiga ah markaynu inta isku darno ayaynu jahayn karnaa cutub ina anfaca oo xuquuqul insaanka ka hadlaya walaalayaal waxaad ogtihiin xuquuqul insaanku waa tool ama aalad ama hub siyaasadeed oo ku salaysan double standard laba wajiileyn la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan iyo hypocrisy munaafaqad nin odayo Soomaaliyeed markii dadka Soomaalidu qurbaha u qaxeen faamiliyadii dhaqan suuban oo adag oo Soomaaliyeed haystay caruurtu way u badbaaday buu yiri faamiliyadii shariicada islaamka ku dhaqmayay diinta islaamka ku dhaqmayayna caruurtu way u badbaaday kuwii kale sadaad ka qaaday marka waxaan ku celcelinayaa in saldhig iyo aasaas ay u ahaato shariicada islaamka iyo dhaqankeena wixii ka baxsanna aan isla eegno aan ka doodno waxaan u imanayaa doodaha qodobka 10aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha ay u qoreen guddigu anigu waxaan oran lahaa aadamaha aan idhaahno aadamaha waayo aadam ma weeyaan markaas aynu qornaan oran lahaa qodobka 11aad faqradda muwaadiniinta oo dhan iyaga oo aan loo eegin lab ama dhadig ayaan oran lahaa yaan la oran lab iyo dhadig isma galaan oo daway kala saaran yihiin marka waa in uu ahaadaa lab ama dhadig halka iyo aad tiraahdeen sharciga marka laga hadlayna cumulative bay noqotaayo isku lifaaqnidaas marka lab iyo dhadig halka ah lab ama dhadig aan idhaahno qodobka faqradda isla koobaad diin xildhibaan kooshin baan la qabaa oo halka dambena waa u iman doonaa sheekh Soomaaliyeed oo inala joogana waaban kala doodee xorriyadda diinta iyo markaynu gaadhno marka diin halkaas isma qabanayaan hal la cadeeyo qodobka 11aad faqradiisa labaad waxa reeban dawlad iyo shicibba baan anigu ku daray oo halka waxa reeban aad tiraahdeen oo waayo xuquuqul insaanka waxa ku xadgudba dawladda inta badan oo laga ilaaliyaa
qodobka 13 faqradda koowaad qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu noolaado ayaan anigu qori lahaa qof kasta waxa uu xaq u leeyahay nolol ma aha in uu noolaada kaga haboon marka qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu noolaado qodobka 14 faqradda 3 oo halka ugu dambeysaan soo qaadanayaan oo waqtiga ka faa'iideynaya haddii qofku sharciyan aanu awood u lahayn marka aanu waan ku soo daray si dhadhanka akhrisku macno u sameeyo qodobka 15 qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu ku biiro dad kale halka uu leeyahay in uu ku biiro urur marka koobaad marka dambe waxa imanaysaa ururada bulshada iyo ururada siyaasadda iyo wixii la mid ah inay noqoto laakiin dad kale ama koox kale halka aan raahno inuu ku biiro urur qodobka 17 faqradda koobaad qof kasta waxa uu xor u yahay in uu ku dhaqmo diintiisa waa qodobka aan weydiiyey sheekhana oo malaha culimadana aad kala doodeen waddanka Soomaaliya waa dal weyn oo ballaaran 15 milyan oo kaliya ku nool haddii aan uga jeedno dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed qof kasta oo aan leenahay inaan xorriyadda diinta iyo caqiidada dood iyo muran ma gasho waa runa 100% muslim baan nahay laakiin 10 milyan oo qof oo ajnabi oo khibrad yaqaan oo sharci yaqaan oo injineer ah oo saynis yahan ah oo dhakhaatiir ah baynu u baahan nahay marka waa inaan idhaahnaa qof kasta oo ajnabi ah waxa uu xor u yahay inuu ku dhaqmo diintiisa la ikraha fi diin qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy ninka saynis yahanka ee khabiirka kuuba yimid dhaqaalayahanada waaweyn adduunka saynis yahanada dhakhaatiirta oo u yeedha haddaad tiraahdo gurigaaga kuma cibaadeysan kartid ama meelaha kale ay isugu yimaadaan taas waxaan filayaa in dib loogu noqdo culimadana dib loogu celiyo innaga oo dee muran caqiido iyo diineed in la galo ma aha laakiin ajnabiga inoo imanaya waxay la tahay xuquuq bay leeyihiin sida inaguba dalalkooda markaan joogno aynu xuquuqda u leenahay qodobka 17 hoyga qofna hoygiisa ama meelaha kale ee u gaarka ah lama baadhi karo lamana dhageysan karaan ku soo daray oo inaan la dhageysan qofka hoygiisa qodobka 19 faqradda 3 muwaadin kasta waxa uu kale halka ah waxa kale oo waxay dhigaysaa macno la'aan ama macno daraan marka si uu cadaado waxa uu inaan idhaahnaa kaga haboon aniga siday la tahay qodobka 20 faqradda koowaad kama mid noqon karo urur ama xisbi aynu ku koobno waxaan u imanayaa faqraddii ay dooduna ka taagnayd oo ahayd xildhibaanadii ugu horreeyayna ka hadleen oo u baahan in la isla akhriyo qodobka 11 faqradda 4 qofka qofna maqaam ama maamuus uu leeyahay awgeed ugama baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab fal dambiyeed ka uu galay marka qodobka waa in lala akhriyaa qodobka 7aad koobaad ilaa 4 ee xasaanada xildhibaanka Soomaaliyeed ee golaha shacabku uu leeyahay iyo qodobka 78aad koobaad ilaa 2 ee xasaanada aqalka sare ama haddaan isku qaadno xasaanada labada aqal ee baarlamaanku ay leeyihiin marka qodobkaasi mugdi buu keeni doonaa iyo in sidii la doono loo turjumo guddiga arrimaha gudaha iyo amnigan ka tirsanahay dabadeedna xeerarkii iyo shuruucdiina loo keenay ayaanu guddiyadii kala kulannay hay-ad ka mid ah hay-adaha ayaa khabiir Hollandia oo PhD sharciga ku haysta iyo qaanuunka ay wadatay dabadeedna dood baanu galnay qodobka 38 ee xuduudda iyo xadidaadda xuquuqda bini'aadmiga ayuu doodii keenayo wuxuu yiri yani Hollandi markaan la Soomaali buu ahaa raalli ahaada wadamada dibadda wax ku soo bartay yani wuxuu yiri xuquuqdii bini'aadmiga qodobkaas aan noo ogolo waanu xadidnay marka qabiy qoraalkii hindisa sharciyeedka ayuu xuquuqdii baan ku soo cadinay marka waxaan gargaryaqaanow anoo ku ixtiraamaya malaha si khaldan baad u fahantay xadidaadda xuduuduhu waa mabaadi'da guud oo mesela maxaa la xadiday right to life qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado laakiin marka qof kale aad disho maxkamad baa lagu geenayaa sharciga ciqaabta ayaa ku xakameynaya
waxaad u leedahay xaq inaad xor ahaatood socoto laakiin marka aad dembi gasho waa lagu xidhayaa xorriyadaadii dhaqdhaqaaqa la xadidayaa waxaad u leedahay inaad xorriyadda ah inaad hadasho laakiin haddaad imanka intaad soo istaagto tiyaatar lagu daawanayo hadday doonto muxaadaraba aan idhaahno filim yaanaan odhane aad tidhaahdid alla dabka oo aad qayliso oo dadkii qof waliba is yidhaahdo naftaada la caymadoo la baxso oo isjiidhaan oo dad badani jajabaan oo dad neefaqabootooba inay ku dhintaan xorriyadda hadalka ma xaq baad u leedahay waa la xadidayaa haddana marka rights and duties oo ah xuquuq iyo waajibaad xorriyad iyo xadayn ama xuduud shuruucduna ay dhigayaan halka qodobka u dambeeyaan ku soo gabagabeynaya dastuurku waa generic wax kasta ma faahfaahiyo haddaad af ingiriisi ku akhrido wuxuu odhanayaad arki doontaan particulars shall be detailed by the law yacni faahfaahinta xeer baa tilmaamaya marka qodob kasta haddaad aragtaan iyadoo la leeyahay xeer baa tilmaamaya dee waa xeerarka innaga inoo yaallay tahay inaynu ansixinno ama lifaaqa ugu dambeeya inta sharci ee wax iska beddelayaane ku lifaaqanee shuruucda qodob walba xeer baa ka dhasha oo la samaynayo ugu dambayntii guddoomiye adigoo raalliya habraacii baan doonayaa inaan ku soo noqdo aynu halkan ka ansixinnay lamana yaabani xildhibaanada oo mugdi baa kaga jira waayo kamaynaan doodin aadna umaynaan fahmin fursad lagu akhriyana maynaan helin laakiin 3 marxaladood buu dhigayaa run ahaantii marxaladda codaynta iyo ansixinta iyo mooshinadu waa marxaladda saddexaad marka xildhibaano inagoo waqtiga ka faa'iideysanayna anu waxaan oran lahaa guddida labada guddi iyo shirgudoonka mooshinada aynu ka yarayno wixii mooshinada markay 4 chapter ba dhamaadaan ama 4 cutub ayaynu isla imanaynaayo aakhiraa war jira labadii nin garowga wadaagay waxay yiraahdeen subagu gunta degay war aakhiraa wajiga subagii gunta ka raadi marka mooshinadu waa inoo 4 chapter markay dhamaadaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh